إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد bini aadanka ayaa caado u ah mararka qaar inuusan ku qancin waxa uu haysto, balse arrinkan taasi way ka duwan tahay. Qofka nimonaaga ah ama transgenderka loo yaqaano ayaa ah mid aanan ku qancin qaabkii uu Ilaahay u sameeyey. Tusaale, hadduu Ilaahay ka dhigay nin, kuma qanacsanid; hadduu Ilaahay naag ka dhigayna kuma qanacsanid. Waraysiyada laga qaado dadka noocan ah ayaana ku sheega inaysan ku qanacsanayn jinsiyadda ay ku dhasheen, mar uuna ay ku fakirayeen hadduu nin yahay inuu naag u ekaado, ama hadduu naag yahay inuu nin u ekaado. Taas ayaana caqabado badan u keentay dadkaas bulshada ayna noolaayeen, sida inay isticmaali waayaan musqulaha babliga ah ee naagaha loogu talagalay, inay ku adkaato inay soo dhex galaan dumarka. Balse iyadoo ay saas tahay, waxaa aad u badanaya tirada dadkaasi oo Mareykanka keliya 700,000 oo transgender ah ayaa ku nool, taas oo ka badan dadka ku nool Boston. Dadkan caqabadaha u weyn ee ay la kulmaan waxaa ka mid ah 40% way isdilaan oo nafta ay iska qaadaan, 78% waxa ay la kulmaan kufsi iyo xadgudubyo. Haddaba su'aasha aad isweydiin karto waxay tahay, dadkan qaab noocee ah ay jirkooda u bedelaan? Jirka bini'aadanka waxa uu ka kooban yahay hormones. Hormoneska dumarka iyo hormoneska nimankana way kala duwan yihiin. Waxaa jira khubaro caafimaad oo baaritaan arrinkaas dheer ku sameeyay, waxayna sameeyeen hormones nimanka ah oo gacan ku sameysa iyo hormones dumarka oo gacan ku sameysa, kuwaas oo haddaad isticmaashid jirkaada isku bedeli kara. haddaan nin ahayd, qaabna ka dhigi kara; dad qof dumar ahaydna nin ku bedeli kara kaliya muuqaal ahaan. Hormoneskaas waxaa ka mid ah androgynous iyo anti-androgynous. kuwaas tusaale waxa ay ku qaban karaan inay jirka ku jilciyaan, murqaha sida murqaha hablaha kaaga dhigaan, baruurta qaabka hablaha kaaga dhigaan, iyo naasaha sida hablaha ay kugu ekeysiyaan. Intaba waa ay bedeli karaan. Sidoo kale waxaa jira hormones haddaad isticmaasho qof dumar adigoo ku ekeysii kara qaab nin, adeeg kaa dhigi kara, murqo ku yeeli kara, gar kuu soo bixin kara. Keliya kuma eko hormones ee waxaa jira qaliimo aad u xanuun badan oo ku kaco lacago aad u badan oo gaaraya ilaa $100,000, kuwaasi oo ay maraan dadka doonaya inay jinsigooda bedelaan. Halkan waxaa idinkugu soo bandhigi doonaa wiil haatan gabadh isku bedelay, balse maray qaliimo aad u xanuun badan. qaybo badan jirkiisa ayuu qaliimo ku sameeyay, balse halkan waxaa idinkugu soo bandhigi doonaa qaybta wejiga oo keliya oo ay ku kacday $45,000 si uu u bedelo jinsiyadiisa hore oo ninka ahayd oo iskugu bedelo gabar. Steve Sanjet waa nin ka soo jeeda Toronto, Canada, wuxuuna halkan ku soo bandhigay qaliin uu ku sameeyay wejigiisa oo ku kacday $45,000, waxaana uu bedelay dhammaan qaab dhismeedkiisa wiilka ahaa, wuxuuna u bedelay gabar asigoo isticmaalaya qaliimo iyo hormones aad u badan. Muuqaal ay baahisay ABC News ayaa waxa ay ku wareysatay laba lamaane oo asal jinsiyadoodii soo bedelay. Sida ku muuqata, waa qoys wada nool, waxaana ay ka kooban yihiin hooyada guriga oo Bianca ah iyo aabbaha guriga Nick, iyo laba wiil oo mataano ah oo ay dhaleen. balse labadan lamaano marnaba kuma riyoonin inay caruur dhali doonaan, maxaa yeelay qofkan timaha dheer oo aad moodo qof dumar ah waxa ay asal dhalatay asigoo wiil ah, waxaana lagu magacaabi jiray Jason, iyo qofkan aad moodo inuu yahay ninna waxa uu asal ku dhashay asigoo gabar ah, waxa uu dhashay asigoo gabar ah, waxaana lagu magacaabi jiray hooyadan iyo aabbahan oo soo wada bedelay asalkoodii. ayaan halkan ku weydiin doonaa su'aalo dhowr ah. Horme ayay idinku soo dhacday inaad bedeshaan jinsigeena? Markaan jiray dharka markaan xirto waxaan kusoo bixi jiray sida qof dumar ah, taasna waxaan u jeclaystay inaan u ekaado qof dumar ah. Mar kasta waxaan ku fikiri jiray inaan mar un u ekaado wiil,
markii ay wiilasha iska bisiibaan shaatiga dhihi jiray allah mar un maad sidan oo kale u ekaatid sidee ayaad u xaajo gudataan marka aad joogtiin sariirta oo sida ay dadku caadiga u dhaqmaan ayaynu labadeena u dhaqannaa miyaadan dareemaynin xilliga sariirta ah inaad qof nin ah aad wada xajoonaysaan biyaanka uma arko aniga qof nin ah waayo aniga ma dareemi arrinkaas oo waxaan dareemaa si ka duwan Nick oo 7 sano ku qaadatay si uu mar un ugu ekaa lahaa nin ayaana aqbalay inuu maro qaliino si uu uur u qaado si uu u noqdo hooyo dhali doonto caruurtan 20 bil ay ahayd muddadaasi waxaana ay ahayd 20 bil ee ugu xanuunka badneed ee ebad ii soo marta maxaa yeelay maskaxdayda waxay ii sheegaysaa inaan hal qof ahay laakiin jirkeyga uu kala duwan yahay taasina ayaa ii keentay dhibaato badan oo maskaxda inaan la kulmo oo aan fikiro ayaana ah hooyadii dhashay labadan mataano ee familka Nick ayaana ah hooyadii dhashay labadan caruur ee mataanaha ah ee qoyska maxaa yeelay Nick kaliya muuqaal ahaan waa nin maxaa yeelay asal waxa uu ku dhashay asigoo qof dumar ah asigoona ismariyay qaliino iyo inuu isticmaalay hormones kuwaas oo bedelay muuqaalka Nick